maamulaha xarunta caafimaadka dhadhaman ee gobolka faafan marwowgaas Cumar Kaamil oo SRTV waraasisiisa ayaa sheegtay inay xaruntan u soo adeeg doontaan bulsho tiro badan ayna xaruntan hoos yimaadaan 11 ruga caafimaad dhankoodana ay dadaal badan ku bixiyaan sidii ay shacabku u heli lahaayeen adeeg ku habboon hase ahaatee ay jiraan caqabado dhowr ah oo ku gadaaman sidee bulshadu u heli lahayd adeeg ku habboon kuwaas ay ugu horeeyaan dhanka gaadiidka gurmadka degdega qolalka dhismaha waaxda dhalmada hooyada oo cidhiidhi waxay badan baan service aan bixinaa waxaan leenahay MCH oo qaybtii dhalmada ah qaybo kale oo adult OPD under 5 oo ciyaalkii dadka waaweyn inpatient baan leenahay laboratory service baan bixinaa qaybta nafaqadarrada carruurta la jiifiyo qaybahaas kala duwan baan u adeegnaa waxaan hoos yimaado oo linkage la leenahay 12 health post qaybta caqabadaha hadan u laabto caqabado aad u tiro badan baa jira oo lambar 2 ay kaga jirto ambulance la'aan ambulance oo jirta adu sanado badan soo shaqeysay ayaa degmada ku qoran tan waa xaruntii degmada marka ambulance taas oo lab bil haday shaqeyso adi 4 bilood ama 5 bilood geerish ku jireysa adeega qabada labaad ee aad u weyn baa ah in nagu yaraaday qaybta MCH kala dhahay dhalmada hooyada oo naloo dhiso dhalmada hooyada guriyihii waa naloo dhisay 90% isagoo ah gurigii oo 100% buuxin baa adu laga joojiyay caqabada kale ee ka jirta waxa weeyaan ultrasound wax la dhaha ma lihin ultrasound waa xaruntu meesha ka dhaqdhaqaaqdo weeyaan oo qaybta dhalmada xaruntu waxay ka dhaqdhaqaaqdaa gabi ahaanteed MCH kuna waa qaybta hooyada iyo dhalmadeeda qaybtaas waxaa jira computerkii hooyada uurkeeda lagu ogaan lahaa noocu ilmuhu noqday riskiga ku sugan yahay lagu kala saari lahaa ma haysano caqabad saddexaad ee ah laboratory-ga oo qaybta xarunta dhaniba ay ka dhaqdhaqaaqdo hooyana ahaata iyo patientiga kale caadiga ahaataaba taasina caqabado weyn baa naga haysta dhanka kale mudane Musaddad Xaaji Cabdiqani ayaa ku sii daray xaaladda xaruntan caafimaad iyo waxyaabaha ka dhimana dhanama sida kale ugu fiican yahay laakiin waxyaalaha heer deegaan naga taagan health centerkan dhanama maadaama bulsho badan aad ugu adeego oo fara badan oo standardkii lagu talagalay uu dad ka zaa'ida uu la isticmaalo waxaana dhibtay ambulance la'aan waxaan ka codsan lahaa xafiiska caafimaadka laba ambulance inoo soo gudbiyeen tan cabasho iyo dhandhame ta kale HMS-ka isagana waxaa la bilaabay 2009 baa la bilaabay wali dhamaystirkiisii ugu liitaa waxaa ka maqan gudqashankii meeshay markay hooyadii kumsa dhigii waxyaalaha uu bixi lahaa meesha uu gali lahaa gudqashankii godkii suuliga ahaa uu ka dhiman yahay qaybta qalabaynta iyaduna way dhiman tahay oo qalabayntii male taasna waa intaas ka dhiman xagga kale dhanka dawooyinka lagu talagalay iyadana baahidii bulshada lagu talagalay sababta xanuunadu gobol way kala duwan yahay marka dawada noocii loogu talagalay codsadaan farmasiga health centerka codsado sidee loogu talagalay uma yimaadaan marka iyadana in taana la saxo waan soo jeedin lahaa kulli dhibaatooyinka ka jira health centerka waxyaalahaas weeye